Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Nixon wuxuu lahaa la taliye la yiraahdo Dr. Robert Dicrain. Dr. Robert Dicrain wuxuu haystaa laba shahaado oo PhD-ga oo kale ah Public Law sharciga bulshada iyo International Law sharciga caalamiga. Wuxuu si fiican ugu hadlayaa 6 ka mid ah luqadaha waaweyn ee caalamka. Ninkani wuxuu soo noqday madaxweynaha iyo guddoomiyaha Harvard University. Wuxuu kaloo soo noqday la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee Nixon ee arrimaha dibadda, ku-xigeenka agaasimaha golaha amniga qaranka Mareykanka, iyo waa aasaasaha xarunta cilmi-baarista iyo cusboonaysiinta Mareykanka. Ninkan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah khubarada siyaasadeed ee ugu waaweyn ee dalka Mareykanka. Maalin maalmaha ka mid ah, madaxweynaha Mareykanka Nixon ayaa u baahday inuu wax badan ka ogaado diinta Islaamka. Sidaas darteed, wuxuu weydiistay sirdoonka Mareykanka inay u diyaariyaan cilmi baaris ku saabsan mowduucaas. Runtiina way ay fuliyeen amarkiisa, laakiin cilmi baaristoodu waxay ahayd mid aad u dheer. Wuxuu ka codsaday la taliyihiisa Dr. Robert Dicrain inuu akhriyo cilmi baarista, kadibna uu soo koobo nuxurka. Dr. Robert Dicrain wuxuu akhriyay cilmi baaristii, kadibna wuxuu aaday ka qaybgalka aqoon isweydaarsi iyo muxaadarooyin Islaamka lagu hadlayo si uu wax badan uga barto mowduuca Islaamka. Maalmo yar kadib, waxaa Mareykanka oo dhan ku faafay inuu islaamay. Dr. Robert wuxuu la baxay magac cusub oo ah Faaruq Cabdulxaq. Mar uu ka hadlayay sababta uu u islaamay, wuxuu yidhi, "Anigu waxaan ahay aqoonyahan bartay sharciga. Waxaan ka helay diinta Islaamka dhammaan sharciyadii aan bartay. Islaamka waa nidaam qaanuun oo dhammaystiran," ayuu ku yidhi madaxweynaha xilligaas joogay ee Nixon. Xitaa intii aan wax ku baranayay jaamacadda Harvard kama aanan helin sharcigooda ereyga cadaalad hal mar xitaa. Ereygan cadaalad Islaamka waxaan ka helay wax badan oo ku saabsan. Wuxuu qaatay diinta Islaamka sanadku markuu ahaa 1981 miilaadiga, wuxuuna isku magacaabay Faaruq Cabdulxaq. Wuxuu yidhi, "Maalin maalmaha ka mid ah, anigoo ka qaybgalaya dood dhanka sharciga ah, ayaa mid ka mid ah culimada waaweyn ee Yuhuudda ayaa nala joogay. Wuxuuna bilaabay inuu Islaamka caayo oo wax badan ka sheego. Si aan u aamusiyo ayaan waxaa weydiiyey hal su'aal: ma taqaanaa inta uu la eg yahay buugga ka hadlaya sharciga dhaxalka ee dastuurka Mareykanka?" Wuxuu yidhi, "Haa, waan aqaanaa. Waa mujallad," ayuu yidhi. Waxaan ku idhi, "Haddaan kuu keeno sharci dhaxal oo dhammaystiran oo aan ka badnayn 10 sadar, ma aaminaysaa diinta Islaamku inay tahay diin xaq ah oo xagga Alle ka timid?" Wuxuu yidhi, "Taasi ma ahan mid macquul ah, mana dhici karto." Markaa waxaan soo bandhigay aayadaha Qur'aanka ee ka hadlaya. Isaguna dhowr maalmood kadib ayuu ii yimid, wuxuuna igu yidhi, "Maskaxda aadamuhu ma koobi karto dhammaan xiriirada xagaalnimo oo aanan cidna la iloobeynin, isla markaana dhaxalka loogu qaybinayo si cadaalad ah cid kasta." Barofesorkii Yuhuudka ahaa asagana meesha ayuu ku